jawaabaan ka bixinayna aad leedihiin oo dhalinyarada habargidir ay xalay baraha bulshada la taagnaayeen horta walaalayaal wadaad jawaab ka bixinaysiin gacmaha cilaan idinma saaree bixiya markay joogto halkaas gaaljecel wuxuu qaatay warbuur eyle iyo meesha la yiraahdo walaweyn inta u dhaxaysa walaalow anaa degan maadaama adiidina wax isku darsano oo aan wax wada yeelano aniga waxayga ila yeelan maysiday iga raali noqo meeshaada joog maamulkan ma aqoonsani cidaan raba aan hoostago cashuurtayda anaa iska qaadanaya anagaa ismaamulaya anagaa dowlad isu ah waxaan ogolahay oo inay deegaankayga yimaadaan oo ay ka taliyaan aan ogolahay ciidamada qaranka ka jira afarta ciidan ee qaranka Soomaaliya oo leeyahay dowladda dhexe waxaan ahayn ma ogoli waxaan rabaa inaan ka hadlo saddex arrimood oo ugu horeyso tacsiyo dibkii shalay ka dhacay degmada Yaqbarweyne waxaan leenahay inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun Allah u naxariisto dhalinyaradii shalay ku dhimatay shaqaaqadii ka dhacday degmada Yaqbarweyne inta ku dhaawacantayna ilaahay samari iimaan waxaan sahay ilaahay caafimaad taam ah siiyo qoysaskii eheladii gaarka ah iyo inta dhimatay ay ka baxeen ilaahay samari iimaan taam ah siiyo inaysan ugu soo laabanin ilaahay baa iyadana ka rajaynaynaa dhacdo loo baahnay ma ahayn dhacdo dhagaha u roon ma ahayn dhacdo lagu aan ku faraxsanahay ma ahayn dhacdo la abaabulay ma ahayn dhacdo uun kidis ah oo ku dhacday si kidis ay ahayd waxaan leenahay waan ka xunnahay wixii shalay ka dhacay degmada Yaqbarweyne ilaahay ha u naxariisto intii ku dhimatay intii dhaawacantayna caafimaad taam oo degdeg ah ilaahay ha siiyo waxaan rabaa qodobka labaad inay aan u sheego dagaalkan ka socda gobolka Shabeellaha Hoose iyo Hiiraan qayb ka mid ah ama galbeedka gobolka Hiiraan inaan wax badan ka fahamsiyo ummadda Soomaaliyeed oo aan fahamsanayn oo aan ka warhayn oo aan xudugaal u ahayn laga yaabo baraha bulshada inay ku arkaan dhacdooyin xanuun badan oo damiirka Soomaalinimada uusan xamili karin inay kala kulmaan maqlaana oo meeshaas dagaal ka socda aan fahamsanayn dagaalkaas waxa uu yahay cidda dagaalamaysa iyo cidda maaragtay isku haysa iyo cidda dhacdooyinka ay dhaxmarayaan ana wax badan ka fahamsanayn rabaa inay aan xoogaa ka bidhaamiyo qodobna waa garnaqsi niman walaalanahay ehelnahay qaraabanahay dhaliya dhaqan baan wadaagno oo la yiraahdo habargidir gaar ahaan cayr ayaan rabaa iyadana inaan kula garnaqsado aan ku horeeyay waxaan rabaa dagaalkaas muddada 10 sano ku dhawaad ah ka socda gobolka Shabeellaha Hoose haddana soo fidiyo Hiiraan soo gaaray inaan ummadda Soomaaliyeed sharaxaad ka siiyo waxa uu ku saleysan yahay cidda dagaalamayso dagaalkaas wuxuu ku saleysan yahay iimaan la'aan isirnaayb cunsuriyad intaas ayuu ku saleysan yahay waxa uu u dhaxeeyaa niman community ah oo la yiraahdo Raxweyn magacaas la baxay oo Soomaaliya idil ah iyo jifi ka tirsan beelaha Hawiye oo la yiraahdo Gaaljecel horta sidaas in loo fahmaan rabaa cidda ku dagaalamaysa gobolka Shabeellaha Hoose iyo Hiiraanba inay tahay community-gaas inta la eg ee Raxweyn iyo jifi ka tirsan beelaha Hawiye oo la yiraahdo Gaaljecel ayuu dagaalka u dhaxeeyaa ku dagaalamaysa waxa uu ku saleysan yahay waa idin sheegay waa aniga kor ku soo xusay Raxweyn iyo Gaaljecel facmaha facanaysan ahayn ama aysan isla ekayn cidda aan garanaynin deegaanka aan ka hadlaya cidda aan garanaynin qabaa'ilada aan ka hadlaya waxaan rabaa tusaale yar inaan soo qaato nimankan community-ga Raxweynta la yiraahdo 4.5 loo qaybiyay Soomaaliya waa afartay ka mid yihiin
golaha shacabka marka la joogo 65 xildhibaan bay leeyihiin gaaljecelna 5 xildhibaan buu leeyahay halka uu dhaafi maayo farqiga u dhaxeeya intay kala joogaan waxaan rabaa ciddaan garanaynin deegaanada iyo qabaa'ilada iyo waxa ishayeen ka hadlayo ee afka Soomaaliga ku hadasho ee dhacdooyinka maaragtay aan wanaagsaneyn dhagahooda ku dhacayaan inay ka tusaale qaadato dadka dagaalamayo inay farqigaas kala joogaan muxuu dagaalamayaa gaaljecel wuxuu dagaalamayaa gaaljecel wuxuu degan yahay gobolka Shabeellaha Hoose dhul ka badan 200 kiiloomitir oo isku weer ah qaybna wuxuu la degan yahay ummadda Soomaaliyeed laga soo bilaabo buur eyle lagu keeno degmada Afgooye intaas ayuu degan yahay wixii laamiga isku xira Baydhabo iyo caasimada dalka waxay ka jira waqooyi ilaa looga yimaado qodbaxaas oo u jirta laamiga 108 kiiloomitir oo seeradaas gobolka Shabeellaha Hoose iyo Hiiraan ayay degan yihiin meeshaan ka hadlaya gaaljecel oo cid haba yaraatee ku dhex nool oo Soomaali ah oo dhex deganaysa jirin gaar u leeyahay inta yar oo albaabkan Muqdisho laga gala ana Soomaaliya la degan dagaalkaas marka maxay u dagaalamayaan gaaljecel aan isweydiino gaaljecel waxay u dagaalamayaan dalkan federalism buu qaatay waxaa la yiri laba gobol wixii ka badan waxa isku darsadeen saddexdan gobol waxa la isku daray waxay ahayd waa saddex gobol oo isku furan community badan oo kala duwanaana ku nool oo degan oo hawiye iyo daarood oo dir leh iimaan la'aan ilaahay uusan raalli ka ahayn iyo faham qaldan oo ay ka qaateen federalismkan la yiri dadka wax wada lahaadee wax isku darsada iyo مسؤولين أي بقبين مركو هراي ومد الصوماليات وقدود أي أقبين أي وحا فرصة أي كدا حلين ما دام أي ماجوريتي كيهين سدح يا قلبا لمكاس كوميونيتي جا أي دون يان هنا يناركتي سدح قبل وأيضا أقارة وعدكر أي سهل كريم وحسام أي سكورهين وح طلع تصارع على بويدين oo ayaga u gaar ah inay ka dhigtaan oo ku tigri falan go'aan ay qaateen taasana keentay in la dagaalamo waxaad ogtihiin biimaal waxa ku socda waxaad ogtihiin garre waxa ku socda waxaad ogtihiin dabarre waxa ku socda waxaad ogtihiin waxa ka jira alberde dhibaatooyin ka taagay waxay taagan yihiin annagu cid kale wax u ogolnahay meel saddexdan gobol annaga askale Soomaalida kale oo degan maxaa ka doonaysaa waxa iska guureen ha baxeen gaaljecel wal male wuu wax male halkaasayba degan yihiinba laga soo bilaabo aadanmadooda oo gudoomiyihii baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliyeed ah iyo midka cawaandiga ah ee muxuu ahaay yaambada wata ee ninka xanuunsan inta soo qabtay dabka ku ridayo shilay dhammaantood waxay ka midaysan yihiin waxa ay soo sheegay maxaa u abtir ah waxaa u abtir ah aadanmadooda oo gudoomiyihii sharci dejinta ummadda Soomaaliyeed waxa ay tamaaya oo xildhibaan daahir amiin jeeso maalin kasta aflagaadeynaya oo haddii alla ku rooyahay ay u dambeysay habarta waayeesha oo alcalka ah awradooda banaanka ay dhooban tahay shalay aad arkayseen markii maxaa ahay xanuunsanaayo waayeelka ahaa sida arxan darrada oo diin la'aanta iyo iimaan la'aanta iyo dadnimo xumada iyo xitaa waxa la qiyaasi karin oo ummadda Soomaaliyeed aysan abtir iyo dhaqan u lahayn sameynay taageersaneedo lahayd oo ku faraxsanahay
asagaa xakumo baarlamaankiisii joogaan hal maalin dagaalkaas 10 sano meesha ka socda kama uusan hadal hal maalin waa awoodaa inuu guddi magacaabo iskugu yeero ajada ka diyaariyo golaha shacabka dhexgeeyo ka hadlo yiraahdo dagaalkan hala soo gabagabeeyo dadkan dagaalama waxay tirsanayeen hala siiyo madaxweynaha oo sheegayo oo dadkan community-ga oo hebelay gareen in isku yeero dadkan maxaan ku raahdaa kula degan dhulkan umada wada leh ninkasta deegaankiisa ku tixgeliye waxay tirsanayaan si waa uu dhihi karay awood u male ninka dhihi karaan hadeer jawaab hayga soo siiyay waa uu dhihi karay muusan dhihin ka cagsigeeda marka waxa uu ku faraxsan yahay oo raalli ka yahay oo la qabaa kuwa cawaandiga ah yaambada ku dilaya dadka xanuunsan ee waayeelada ah gubayay ayuu fikirka la qabaa asaana soo diray raalli bay iskaga yihiin cid ugu beetay kartaa aniga ugu soo celiso hay'adda kaal jecel marka waxay diideen dulmigaas maadaama loo diiday in statekaas ay wax ku yeeshaan matalaad ku helaan deegaanadoodii ay maaragtay matalaad ku helaan maamulkaas ka mid noqdaan ay ummadda wax la qaybsadaan maadaama loo diiday oo maaragtay waxaa ugu sarreeya dhaqanka gaal jecel ogaaska ayaa ugu sarreeya ogaaska iyo wafdi uu hogaaminaya inta muqdisho ka duulaya bay dhaba tegaya diyaaradda dib loogu soo celiyo soo dusti marka la samaynayo uma soconin dad inay maaragtay dulmaana waxay u socdeen saamiga dadkii maaragtay dadkooda inay meesha ka helaan matalaad ku yeeshaan ayay u socdeen waxaana la yiri kamid maahidiin kumana jirtaan raalli ahaada diyaaradiina kulaata wayna soo laabteen maalintaa wixii ka dambeeyey maamul bay soo dhisteen maamulkaas xaaraanta ah maxaan ku raahdaa dhinaca ka raran asagana wuxuu u taagnaa sida loo sifayn lahaa ummadda Soomaaliyeed ee degan gobolkan Shabeellaha Hoose ee hawiye leh ee dir leh haddii alla ku reeyahay maxaan ku raahdaa gardheere Soomaali leh ee Shareesoor leh in maaragtay la cirib tiro laga saaro la qabsado gobolkan ayay iyagana u taagnaayeen inta kale oo soo sheegay oo iyagana maxaan ku raahdaa cagsigeeda dagaal ay ku jireen ilaa hadda qoryaha wataaro difaacaasa ka socdo gobolkaas dagaalka ka socdo horta saas uu ku saleysay waana noocaas gaal jecel intaas uu kamid yahay wuxuu u dagaalamaya markay joogto halkaas gaal jecel wuxuu qaatay warbuur eyle iyo meesha la yiraahdo walaweyn inta u dhaxaysa walaalow anaa degan maadaama adiidina wax isku darsano oo aan wax wada yeelano aniga waxayga ila yeelanaysiday iga raali noqo meeshaada joog maamulkan ma aqoonsani cidaan raba aan hoostago cashuurtayda anaa iska qaadanaya anagaa ismaamulaya anagaa dowlad isu ah waxaan ogolahay oo ay deegaankayga yimaadaan oo ay ka taliyaan aan ogolahay ciidamada qaranka ka jira afarta ciidan ee qaranka Soomaaliya oo leeyahay dowladda dhexe waxaan ahayn ma ogoli dariis wisti soo wisti ay leedahay aniga ma ogoli mara idhax imaanaysa banaanka iga mar ii ka imaan ma cagtan ku marinaya waa dagaalkaas muddada 7 sano ah socda ee saqiiraha la iska gudaya ee sida awaanta la soo baabiinay waxaa intaa dheer dagaalkaas sidii ugu abaabuleen qaarna baraha bulshada iyo waxay taagan yihiin miidiyaha qaarna xabaday ridayaan qaarna waxay bixinayeen jeebkay ka dagaalamayeen sidaad ogtihiin sanadkii hore dagaal xuna ka dhacay diyaarada ayaa maaragtay looga keenay meesha la yiraahdo baydhaba ciidan looga soo daabuliya ka dagaalamay yaqbir weyno waa lagu qabsanay way ku jabeen ciidankii haddii alla ku reeyahay ay ka keeneen baydhaba oo ka soo daabulay lafta gareen ayagoo soo dhiibay oo qorihii laga qaadanayo wareejinayo waana la soo qaldilay baraha bulshada waa ku aragteen oo ciidanka duufaanta Sheekh Xasan Barsan ay wareejinayay baraha bulshada waa ku aragteen waxaan rabaa marka dagaalkaas dagaal qoto dheer oo haddii alla ku reeyahay xaaladiisa noocaas ay tahay waaye dadka dagaalamaya iyo miisaanka ay kala leeyihiin Soomaaliyeed waxaan rabaa inaad sidaa dagaal uga noqotaan ay tahay jifi ka tirsan beesha hawiye
iyo community-ga Soomaali barkeed ah ee la magac baxay raxaweyn inay tahay waxa meesha ku dagaalamayo dagaalkaasna uu ku salaysan yahay iimaan la'aantaas iyo waxaas Ilaahay u soo ka ahayd dagaalkaas meesha la yiraahdo buur eyle iyo eyligeeda iyo ilaa sigle jiir meesha la yiraahdo waa uu ka socdaa waa la isku hor fadhiyaa maalin kasta la isku dilaa bishii 7 ee sanadkan dabayaaqada ah oo gabagabada ah waxaa ka dhacay dhacdo xanuun badan oo haddii alla ku rooyo cidii Soomaali ahoo ma aragtay loo sheega maanta aan damiirkeeda si kale u noqonaa waxaa ka dhacday dhacdo xanuun badan dadku waa isdilaa Soomaali way isdishaa laakiin Soomaali dagaalkeeda waxaa ka mamnuuc ah gabdhaha in la iska dilo in waayeelada la dilo caruurta in la dilo dhaqanka Soomaalida ka mid ma ah Soomaali way dagaalantaa laakiin Soomaali maana way intaas lama taabtaan way meelay ka dhacday ma hayno طبعا سنة 2020 طبعا أركينا dhacdooyin noocaas bishii toddobaad waxaa dhacday caruur reer guuraa oo meel degan oo dadkoodii ay xoolo ka soorsadeen qaarna ay magaalada ugu adeeg doonteen ee guryahoodii joogo oo rag ah oo midna 7 sano jir yahay midna 3 jir yahay ayaa inta loo yimid ayaa waxaa faash qurta lagaga guray maxaa faash ayaa nafta lagu dhaafiyey waxay ku jiraan may weeye caruurta maxay galabsatay 7 sano iyo 3 sano oo gurigoodii jooga ayay faash ku dileen ay jarjareen waad baari kartaan dadkaanan ka hadlayna ama aan u hadlayna dad reer media maaha waa dad inta badan saxaafadda aan maaragtay maxaase aan ku hadlin aan jecleen ayay horta u badan yihiin dhacdadaas ayaa dhacday bishii 7 ee sanadkan meesha la yiraahdo Burdhe iyo Bakalle oo galbeedka gobolka Hiiraan ah oo xadudka oo gobolka Hiiraan ka tirsan yani ka hadlamayna Bakool ka hadlamayna bay kama hadloohayn way Hiiraan 14 ay maraysaa dhimashada meel 12 ah iyo meel 13 ah la kala maraya waa la isku hor fadhiyaa niman shiyaadiin ah oo ayaga u shaqeeya oo community ah oo dalkan dhibaato ku ah oo qawaariij ah oo ayaga ay sameysteen oo waxay cid qaabkay rabaan ay u isticmaalaan ayaa meesha ka taliya ciidankii maaragtay gaal jecel maxaan ku raadaa waxaa la yiri ka baxa deegaanadiini ayagana way joogaan oo laga ku marka kara ceel cali iyo hadii alla ku rooyo meesha la yiraahdo qobaxaas iyo dhiriyo iyo boqi maqoyle nin ka sokeeyo oo qor wata gaal jecel marka karna amar ay soo rogeen raxaweyntina way joogaan oo ciidankoodii way joogaan dadkiina saasa loogu dilayaa soo ma garan waa teetal ayaga ay isticmaalayaan oo ayaga ay leeyihiin marka dhan ka fiiriso oo caadi ah cidii warkayga ku qanacsaneen baaritaan dhaba ha qaado dawladda haddayba jirto oo Soomaaliya maxaan ku raadaa waa inay samaysaa baaritaan dhab ah hadday ugu soo noqoto arrintaas ana maxkamadda fuulay dagaalkaas marka waa dagaal imaan la'aantaas iyo cunsuriyiinta ku salaysan hase noqotee gaal jecel waa uu ka foojigan yahay waa uu diyaarsaday ama shaati shabaab ha soo gashteen ama shaati dawlad ha soo qaateen ama ayaga dawlad iska soo dhigeen raxaweyn gaal jecel waa u tabaabushaysta waana iska dhicinaya waana dagaalamaya biillahi ta'ala dulun ilaahay raali kama aha darabna uma aha macayna uma aha guushina asagay ku dabaynaysaa biillahi ta'ala waa xaqiiq maanta waa noolahay waa hadlaya haddaan dhintay intay ka dambaysaa hadalkaygaas ha xasuusatee gabar intay ka dambaysana gaal jecel gumaysi qaadan maayo mana aqbali doono waxa uu rabo oo xaqa u leeyahay waxanan ahayn cidii ulu timaadana gaal jecel way ka shalaay doontaa dhul ay raadinayeen hadda ka horna waa sheegay
والله بالله يطلعه إن أنا الله دحين دونين قال جعلك جبوين كدجن iyo ma aragtay kan hadda meesha xabada ka socoto jooga inaan loo dhaxayn doonin haddaysan ku sii socoto waan hubaa dadka aan ka soo jeedan oo hadlayo waan aqaanaa reer dulun maaha reer dhibaato maaha maxaan ku radaa dadka ugu diriska wanaagsan waayo waa dadka cidii dhex gasha aan cunsuriyeynin ee intay doonto ay lagu dhex noolaan karo waayo ma faaninayo ilaahay baa siiyey haybadaas midaan ku faanaya maaha waa mid dhacda muuqata ayna abtir u leeyihiinoo cid kastoo Soomaali oo taqaana gaal jecel ay maanta dhihi doonto waa runtiisa ay leedahay waxaan sheegayo waa wax documentary ah oo cad oo sal iyo raad iyo meel loo raadiyo la waxaan leeyahay dagaalka iimaan la'aanta ku salaysan ummadaha ku halaagina dadka gacanta isu gelinina xoolahooda halaynina cirdigooda ha qaribina ha dhibaateynina ma helaysaan waxaad ku hamiseen wax hirgeli kara iyo wax dhaqan ah iyo wax in suurgala midna ma gaal jecel dagaalkaas waa u tabaabushaystay waa u diyaar garoobay haddaad keentaan Itoobiyaanka idinla degano meesha ku haysaan haddaad keentaan neeva u malayn maayo inaad ku ladaysaan ama tuulo gaal jecel ka mid ah aad maxaan ku raahdaa ka talinaysaan ma dhacayso gaal jecel waxaad ku dagaalkaas ku istaajin karaa oo nabad looga heli karaa saamiga oo xaqa u leeyahay kaga maqan state-kan waa inaad bixisaan amar la'aan shuruud la'aan waa inaad xaal ka bixisaan 7 sano dadkaad laynayseen aflagaadada iyo xumaanta aad u taagnaadeen waa in gogol dib u heshiisiineed aad dhigtaan adinkaan idin la hadlayaa nimankiina sharanshuurta ee community-ga adinkaan idin la hadlayaa damaciina waa been la hirgelayo wallaahi waxaana Soomaalinimo ku weyseen waxaada walaaltinimo ku helin waxaadan wada tashi ku qaadanin gaal jecelka meel loo rumaysaan mana dhacayse ha ku karaamad seegina dad beera falata ah xoogsato aad tihiin gaal jecel waa dawlad guuraysa xoolahiisa ku filan baahi uma qabo olaad dadka ugu adkaysiga badan waa nin yaabo ku nool ah ayaa nin 200 oo halaad leh oo laga yaabo sanadkii inay 89 ay irmaan u tahay rabo inuu la dagaalamo qoodhiina xiridin Soomaaliya kama rabo inaan ku sii fogaado halkaas aan kaga gudbayaa dagaalkaas qaabka uu socday ciduu u dhaxeeyo horta waa kaasi Soomaaliya hal ogaado waxaan rabaa inaan garnaqsi yar ula noqdo niman aan walaalanahay oo dhaliyo iyo dhaqan ba aan wadaagno oo la yiraahdo habar gidil inaan la garnaqsadaan rabaa gaar ahaan ayr ayaan rabaa inaan la garnaqsado horta waan ka xumahay wixii shalay ka dhacay degmada Yaqbir Weyne ay ku laatay dhalinyaradii waxaan ku raahdaa maanta badnayd labada dhinacba waxaan leeyahay mar kale ilaahay ha u naxariisto inta dhaawacana ilaahay ha noo caafiyo waana rajaynayaa inaysan soo laabanin dhacdadaas dadkaas walaalaha ah ehelka ah qaraabada ah aan kala maarmin labada indhood kala hurdo ah in dhibta noocaas ay kala gaarto waa midaan ka xumahay waan cabaaraynaynaa dagaalkaas waxaan rabaa walaalaha habar gidir waxaa la yiraahdaa markii la joogo community-ga hawiye waxaa la yiraahdaa waa indhaha hawiye waana yihiin ilaahayna waa ka dhigay waxaan u aragnaa annaga habar gidir ama ay ku sundan yihiin dad dheer garad ah oo dorosa 20 sano oo nagays oo aan la gaarin oo dhiman dadkan waxa ay noqon karaan ama cimilada soo socda ama dadkan ay diriska yihiin waxa kaga aadan waa dad hadii alla ku reeyahay walaaltinimada dirisnimada aad ugu fiican bay ahaayeen annaga ma garan karno sababta ay noo dayaceen dagaalka intaasoo marxaladood marayay community-ga inta leego oo sharanshuurta ah ay nagu fiirsanayeen hal maalin aysan kaga hadlin maxaa ay shir jiraad intay qabtaan aysan kaga hadlin siyaasiyiintoodii miisaanka lahaa hadalkooda la maqlayay
sababta ay ugu gaabsadeen ilaa waxa la xasuuqaayo maalin kasta qaarna masaaraha lagu dilayo qaarna la gubayo iyagoo nool waa dadkoodii waxay kaga aamuseen anigu habargidir ma garan karee maxaa hoosoo jira waxay dhaqankii habargidir khayr allah siiye aan ku soo sheegay sifooyinka wanaagsan waa joogaana sababtay ugu hadli waayeen oo war dadkan dad bay leeyihiin daaya xaq bay idinku leeyihiin bixiya ay u dhihi waayeen ay ugu dhiiri waayeen ayaan rabaa bal in ay habargidir iga soo jawaabaan oo ay ugu gaabsadeen oo culli ahoo habargidir iyo gaaljecel u dhaxeeya ayaan rabaa in maaragta lii caddeeyo way maasiyiin walaalahayn abgaal cismaan sharaf iyo karaamo waajibkii idin saaraa waa guduteen maxaan ku dahdaaye sharaf iyo karaama ha idiin sugnaato waa qalbigaan idinka ognahay waa hadday tahay dhaqan iyo hadday tahay dhalinyaro iyo hadday tahay siyaasiyiin intaba waad hiiliseen walaayihiin abaal bay idin hayaan insha allahu afka waad ku difaacdeen hadday yadda baahi timaadana waan aaminsanahay qarabkii iyo hiilkii aan idinku lahayn waad bixiseene inaad dhammaystiri doontaana waa aaminsanahay marka laga reebo abgaal cismaan hawiyihii kale oo habargidir weyn tahay annagu dhaliil baan ka qabnaa waxay lagu qabatay ayaan rabnaa war walaalow haddaad wax ii taraynin iga gaabso haddana aadna hawiyaha kale afkiisa iyo yadiisa toonaba ma hayna habargidir dagaalkan maalintuu bilowday hadda shalay oo hadda dhibkan aan ka tacsiideynay oo dhacay inta u dhaxaysa habargidir gaar ahaan cayr walaalahayn waxay la safnaayeen raxweyn ama shaati ha ugu jira ama ayagoo shacab ah intaba cadeymo dhabaan hayna ayagaa aan la hadlayaa og soomaalida diriska nalahaa og hawiyaa og gaaljecelna waa dhibanihii ay dilayeen tirika 4 mar ayay xasuuqeen dadkii la dhashay oo cadowgeeya maaragtay aan ka soo sheekaynay hortaagan oo iska dhicinaya ayay laayeen ciidamo habargidir ah magacay doonaan ha ugu jireen shaatigay doonaan ha gisteen kala saari maaye dhiigga xisaablaanow dhaqaaqa aniga ma dhihine dhallinyadii xaggee geeyey ninka maxaan ku idhahdaa raxweynka amar intuu soo siiyey walaalkiis dilayo oo maxaan ku dilaana aan dhehaynin annaga garan waynaye habargidir meel ha noogu sheegto walaalahayn cayr meel ha noogu sheegeen waa gobol shalaa ugu dambaysay waxaan arkaya xalay dhalinyaro badanoo cayr u badanoo maxaan ku idhahdaa aad uga hadlaya baraha bulshada oo leh gaaljecel baa habargidir maaragta laga gacnahayaa dilaysa gaaljecel baa saan yeelaysa anu maraba dhalinyaradaas uma jawaabaye waxaa la garnoqsanaayo waa dadkii aan dhalanay ee habargidir gaar ahaan cayr maalin dhaweed markii ninka odayga ee xanuunsan la soo gubay habeenkii ciidamadii ka filceliyee tuulida weeraray ee soo gubay markay socdeenay wiil maxaan ku idhahdaa ciidankaas ka mid ahay dhaawaceen wiilishii ceelka joogay maxaan ku idhahdaa beriweyne ee walaalahayn cayr ee habar iji u badnaa wiilkii markay dhaawaceen waxba lagama dhihin waxaa la yidhi war maxaa dhacay waa caadiya waa dhacay raalli ahaaday dheheen war waayaha la yidhi bal adikana raalli ahaadee bal insha allah waayahay gacmo geeljir hoosaa loo dhaqaa baa la yidhi arrintii ayaday taagan tahay ayay shalay haddana wiil askari xoogga dalka soomaaliyeed ka tirsan oo aanba qabiil shaqo ku lahayn oo meesha xaaskiisu degan yahay oo reerkiisii aaday oo fasax ku joogay ayaa inta la yidhi kaalay markuu u tagayna baas lagu jeexaa qoriga laga qaatay dagaalka shalay dhacay yaaqbirweyne habargidir iyo gaaljecel ku dhex maray oo horta aad leedihiin maxaan ku idhahdaa
jawaabaan ka bixinayna aad leedihiin oo dhalinyarada habargidir ay xalay baraha bulshada la taagnaayeen horta walaalayaal wadaad jawaab ka bixinaysiin gacmaha cilaan idinma saaree bixiya haddaad maxaan ku rahdaa bixinaynina annaga hanala tashanina hana noo sheegina horta waxaad doontaan ifcal maashiid idinkaa yaqaan laakiin horta dagaalkaas qaabkaasoo u dhacay gaal jecelna 10 sano idin dulqaadanayeen iyaad dilayseen oo marna aad raxaweyn ku dilayseen marna adinka aad toos u dilayseen maxaad ka rabtiin gaal jecel walaalihiin waaye haddaad wax u taraynin maxaad u dilaysiin ood ka rabtiin gaal jecel ma idiin cusuriyey buri weyne waa degantihiin ganacsiyaad ku haysatiin ceel maaragtay ceelbiyooda ku leedihiin waa degantihiin walaalayaalow ma ladiin dhacay gabdha maa ladinka kufsaday ma ladiin dhibaateeyey gaal jecel muxuu idiin geystay maxaa ka rabtiin bal sheega bal wiilasha xalay boodboodaayo oo dhalinyarada oo aan ka arkayna baraha bulshada oo gaal jecel ma anaga na dili karada lahaa kaaliyo bal ila garama aniga la hadla bal maxaad ku qabatay gaal jecel 10 sano inaad dishaan oo aad cadow u soo raacdaan gaal jecel miyuusan kula dhalan miyuusan ehelkaaga ahayn maxaa dhacay maxaasay ku keeneen wiilasha habargidir inta ogaatay yaqbir weyn lagu dagaalamayo sharashuur soo weeraraysa hal maalin magaalada la rabo in la qabsado oo la gubo magaaladoodii waaye walaalahood difaac ma la galeen maxay difaac urgeli waayeen wiilasha gaal jecel magaalada ku dhimanay maxay difaac urgeli waayeen wiilasha habargidir ilaa magaalada loo socdaa haye maalin laguma qabsaneen dhaqaale lama weydiisto dagaal ilaga lama dhaho deegaankooda degan way ku ganacsataan cid ayadoo wax ku weydi ma jirtaa oo gaal jecel haday jirta waa jirtaan odaha xaalaa ka bixinaynaa maxay u dhici weys ma dhicin dilaad ku sii darteen alloora marka cadowga laba ma aha marka waxaan rabaa ayadana ma fogaanaye waxaan rabaa walaalaha in habargidir wixii aan ku naqaanay walaalni jacaylkii dirisnimadii xigmadii ku naqaanay kama hayno dilay noogu dareen ilhaanay noogu dareen barambagaaday noogu dareen waxaa la taagan yahay oo hadda la afuufuu hayaa meeshan oo fuusto oo riixa tuuladii daraata la gubay waxaa lagu gubay hooyo iyo 8 caruur oo dhashay iyo aabihii dhalay guri lagu soo xiriyo dab lagu qabto waa been sali raad male dadkan meediyaha ma jecla kamana hadlaane aan u hadlayna dhageysta ummadda Soomaaliyeed waa been sali raad male qof muslimaana ay shaato maxaas la sheegay annaga weydiinay ciidamadeena xabad u su'aalnay xabba kama jiraan sabana ku dhacay dadkaas oo dagaalkii muxuu ahay meesha ku dhaxmaray ciidamadan shacaleemooda iyo ciidankan duufaanta dagaalkii meesha ka socday sabanadii la isdaafsanayo hubkii la isku ridayo gurigan ku dhacay sidaasayna dadkan u leedeen ilaahay ha u naxariisto waan ka xunnahay waan u tacsiideynayna waxaan raalli ka nahay maaha labada dhinac badhiig Soomaaliyeed inuu qabto anaga diyaar uma nihin difaacan ahnahay dad weerar oo dadkaas duulaan ku ah anaga ma nihin xumaanta ugu badan iyo akhlaaq darrada ugu badan dadka sameynaya waa dadka aan soo sheegay cidii ay lahayd inay ka hadasho ama ay joojisaana way fiirsanaysaa raalli bay ka tahay gardarro waxaa leeyahay garab og iyo cudur geeri ogba waxaan ku leeyahay waa loo dhintaa annaga taasaan na haysataa waxaan rabaa ummadda Soomaaliyeed inay maaragtay la socoto ay ogaato waxa ka jira dhulkan lagu dagaalamayo dagaalkaas qaybahaas kala duwan ka socdo Hiiraan iyo Shabeellaha hoose ka socdo iyo sababta uu istaagi lahayd waa inta aan kor ku soo sheegay aadaad u mahadsantihiin wabillahi tawfiiq waxaan rabaa an iloobay ciidamada xooga dalka Soomaaliyeed ee degan gobolka Shabeellaha hoose walaalayaalow dad baa xumeeyey magaceena yaan lagu dhibaatayna dadkaas bulshada ah ee masaakiinta ah ee birmageydada ah ee shabaabka uu dilaayo ee shaatiga shabaab lagu dilaayo ee shaatiga qabiil lagu dilaayo ee shaatiga maamul lagu dilaayo adinkaa u dhaartay adinkaa maxaan ku rahdaa ciidankoodii ah adinkaa awoodoodii ah haddaadan wax u tari karin waxa u dhimina haddaadan wax u taraynin faraha kala baxa dagaalkaas dhexdhexaadka noqda way iskaga filan yihiin sharashuurtaas iyo waxaasoo maaragtay isbahaysi ah way iskaga filan yihiin dadkaas
maxaa yeelay dulun ilaahay raalli kama aha adinka dhexdhexaad ka noqda ciidamada qarankana intaasaan leeyahay ilaahay hanaga maaragtay masaabaxo waxaasoo dhibaato ah ilaahay ummadda Soomaaliyeed bageeda burcatay isu mariyo ma rabno dagaal sokeeye dhibaato dil boob 30 sanaan ku soo gaarnay 40 sanaan ku jirnaa anigan maanta 40 jirka ma arkin dawlad Soomaaliyeed ee socota ee shaqaynaysa ma soo gaarin burburaan ku dhashay burburaan ku soo koray ku soo wax ka samaantana waxaan nahay nin oday ah mana jecli inay sii socoto waxaan rabaa aniga nasiib darrada ugu dhacday ama jiilkii aniga la midka nasiib darrada ku dhacday wiilkay ay ku dhacday ma rabo raali ahada waxaan rabaa wiilkay inuu iskuul dawlo wax ku barto isbitaal dawlo caafimaad ka qaato dawladda uu shaqeeyo nolol helaan raba mid kasto Soomaaliya saasoo jecel yahay maxaa lagu gaari karaa midnimo walaalnimo waxay soo ogolaasho ayaa lagu gaari karaa Soomaaliyeey waa istilmay hebel soo dilay hebel soo dilay hebel boor meel lagu ma gaaro Soomaalidii maxaan ku raahdaa Soomaaliyeey dib iskugu noqo waxaan la hadlayaa culimada Soomaaliyeed waxaan la hadlayaa dhaqanka Soomaaliyeed waxaan la hadlayaa dadka aqliga iyo aqoonta u saaxiibka ah waxaan la hadlayaa dawladda Soomaaliyeed ee maanta jirta dalkan daba qabasho rabaa dalkan waa dhow yahay qabta Soomaalida bulshisiin ay rabtaa qabta gobol u dhiga Soomaali isu keena Soomaali maxaan ku raahdaa qabiil kursi ninku raadinaayo maxaan ku raahdaa meel tagi maayo waxaad Soomaalinimo ku weysin heer hebel ku heli maysid Soomaaliyey tasho Soomaaliya ha noolaato. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.